miyay miir beelas qobeen maraara dilaac ma quusteen miyay miir beelas qobeen maraara dilaac ma quusteen inana muxibiyo kalgacal milan maashee farxadii magaabineen maashee farxadii magaabineen. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bishii February horaanteedii 1991 ayaa dhammaan gobolada waqooyi lagu xoreeyay nidaamkii Maxamed Siyaad Barre. dadku xiriiq qaxooti ay ka yimaadeen dalka ay yimaadeen dal burbursan oo aanay adeegyadii bulshada asaasiga ahaa ee wado biyo leyd iyo waxaan kaas lahaa iyo isbitaallo aanay jirin. dalku wax la burburiyay oo dayuuradii madaxfeel lagu garaacay wax la farataystay ayuu ahaa. taasaa diiftii iyo darxumadii dagaalkuna u dheerayd. dabeedna go'aamadii ugu horreeyay la qaatay waxa ay nabadeyn iyo dib u heshiisiin dalka lagu soo dabaalo oo aan xabad damba dhicin waana lagu guuleystay. isla bisha February bartamaheedii 20keedii waan tagnay magaalada Berbera hudheelka Yaxye meel hoose oo imika Doobi markii ugu dambeysay oo galbeed u jeeda oo aad moodeen underground tahay baa lagu shiray. waxa fadhiistay gudidii fulinta SNM oo Cabdiraxmaan Axmed Cali tuur hogaaminayo iyo salaadiintii iyo madax dhaqameedkii beelihii waqooyi. markaas Soomaaliland ma jirin. waxa la go'aansaday in shir loogu wanqalo walaaleynta beelaha waqooyi lagu qabto magaalada Burco bisha April 27keeda. tirada 27ka la iskama qabsan uun maalmihii gobonimada la doondoonayay maalin kamid ah ayay ku beegnayd oo imika xasuusnayn. dabadeedna sidii baanu Burco ku tagnay 27kii waxa ma suurtoobin guddi qaban qaabaa la saaray kamid baan ahaa guddida qaban qaabada xogaal baan ahaa. dabadeedna 5tii bishii May 1991 ayuu shirka walaaleynta beelaha waqooyi ka furmay magaalada Burco. gelin dambe ayuu furmay salaadii casar kadib barxad weyn oo hoolkii markii dambe golaha dhexe ku shireeyay aqal yar oo dunsanaa ayaa daarad weyn oo dhexdooda la fadhiistay. dadku wuu isu dhamaa SNM waxba kama maqnayn taliyayaasheedii golaheedii dhexe gudidii fulinta odayaashii salaadiinta ahaa iyo intii ay caga ku qaadanayeen garaado salaadiin madax dhaqameed kale way joogeen. marka xafladii furitaanku halkaas ayay ka dhacday. bil amaara shir gudoonka waxa fadhiyay Cabdiraxmaan Axmed Cali Xasan Ciise Jaamac iyo Sheekh Ibraahim waxaana maalinta gudoominayay Xasan Ciise Jaamac oo ahaa gudoomiye ku xigeenka SNM. shirkii saasuu furitaanku ku dhamaaday. dabeedna cidii gaarka shirka u lahayd oo ahayd odayaashii iyo cuqaashii iyo salaadiintii iyo garaadadii beelaha waqooyi ayaa shirkoodii galay. waxay shirayeen 5tii bishii May ilaa 8tii bishii May 6 qodob ayay soo saareen. footage-ka ayaa ku arki doontaan nin aadan Axmed Diire la aadan baradha leeyahay oo xageeyo oo hagala guurtay ayaa akhriyay 6 qodob waxay ahaayeen. in waqooyi gaar isu taago oo aan la raacin koonfur qodob koowaad buu ahaa. qodobka labaad waxa in lagu dhaqmo shareecada islaamka. qodobka saddexaad wuxuu ahaa in si dhaqso ah dawlad waqooyi loo dhiso dawlad waqooyi. qodobka afraad wuxuu ahaa in la sugo nabadgelyada waqooyi. qodobka shanaad wuxuu ahaa in golayaasha ururka oo loola jeedo ururka SNM iyo dawladda si cadaalad loogu qaybiyo beelaha waqooyi. qodobka lixaad ugu dambeeyana wuxuu ahaa in nabadgelyada gobolka Sanaag xil gaar ah la iska saaro guddi gaarana loo saaro. 6daa qodob ayay gaadheen odayaashii guurtida ay ku gaadheen halkaas. 6daa qodob waxa saxeexay 18 oday oo garaad suldaan caaqil iyo madax dhaqameedkii beelaha mathaliyay ahaa. 18 magacyadoodii footage-kii waxba ka heli doontaan. 18 waxay u qaybsanaayeen markaan bari ka soo bilaabo 2 reer laas qoraya iyo 3 reer soola iyo beeshan dhexe oo ilaa 9 saddex in laba awdal ku qornaa iyo laba sayla afar galbeedka 9 dhexda iyo 5 bariga
18 kaasaa saxeexay warqadaasi iyaga go-aan bay ka ahayd maadaama hay-adda sharci dejintu ay ahayd golaha dhexe ee SNM waxay ku socotay oo soo jeedin u ahayd golaha dhexe ee SNM soo hay-addii sharci dejinta uu yahay majlis tashriicigii xeer dejintii golihii dhexe ee SNM dabeedna go-aamadii halkii bay tageen ajandayaashii kalfadhigii labaad ee caadiga ahaa ee golaha dhexe ayaa lagu daray meel dhexe oo ilaa aan u malaynayo inay qodobka 8aad ahaa ayuu galay dabeedna kalfadhigii sidii hawlihiisii ku bilowday maalin walba odayaashu waxay arkeen in qodobkii aan la soo qaadin dabeedna markastoo la soo waxba wayna weydiinayeen waxaan qodobkii xagee lagaga tagay maalintii dambe oo ay bishii May ahayd 16 galabnimadii salaadii casar kadib ayaa dadkii reer Burco iyo dad kale oo berbere ka yimid iyo wixii gaadiid ay wateen qoladaasi iyo wixii gaadiid ay Burco ugu tageen intii magaalada soo dhex mareen waxa horkacayay gaariga dubdamiska airportka berbera oo sirankii na wareejinayo qaylinaya dabeedna intaasaan nagu soo gashay xeradii noogu soo gashay aan ku shiraynay salaada casar kadib Ibrahim Migaag oo golaha dhexe gudoomiye u ahaa ayaa u soo baxay xilku ku magacaabna waxa gudoonshaha golaha dhexe dabeedna gaari karasiida uu fuulay nin Maxamed Daahir leeyahay oo nooga aqoon badnaa dadka iyo sida loo maamulo ama loo hago ayaa gaari karasiida fuulay Allahu akbar Allahu akbar Allahu saddex goor markuu yiri Allahu akbar hadeen baa aamusan markaasuu yiri Ibrahim soo fuul Ibrahim ba gaariga fuulay dabeedna dadkii uu sheegay wuxuu ku yiri waan ka go'aan qaadanaynaa wixii naloo soo jeediyay ee buuqa iyo rabshada joojiya dadku saasay naga tageen maadaama ay galab ahayd wax yar ayaan markaa arrintii ka sii hadalay kulli waan xasuustaa Cabdiraxmaan Axmed Cali oo sare kacay waxa la yaalo wax dhibaato oo ku jira ma jiraan inaynu gaar u yeelano dowladnimadeena iyo dhismaheena waa lagu kala tagay waqtiga bilowga abu ahaa electric iyo wax la shitay iyo waxaasiba iska adkaayeen aroortii ay bishu 17 ka ahayd ayaa ajandihii la guda galay qodobkii ay odayaashu soo jeediyeen ahaa in maamul gaara oo loo sameeyo waqooyi oo aan la raacin koonfur dabeedna kii baa la soo dhigay falanqayntiisii baa la galay doodiisii baa la galay saddex magac baa meesha la soo dhigay Somaliland waa la soo dhigay Puntlandna waa la soo dhigay nin baasha jaan la yiraayo dadkii Sacuudiga taakuleenta ka soo diri jiray ahana shanka room soo dhigay waan xasuustaa mid baa ku yiri dadkuna maxay noqonayaan markay meesha naan shanka room dabeedna wuxuu shanka rooniin bay noqonayaan laba cod waxa loo qaaday Puntland iyo Somaliland marka Somalilandtii ayaa badatay anu xogayaha warfaafintaan ahaa ee ururka SNM guddiga fulinta cajaladii Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo Ibrahim Migaag ay go'aanka ku sheegeen ay ku qudbadeynayeen midna gudoomiyaha SNM ahaa Cabdiraxmaan ahaa midna gudoonshaha golaha dhexe ahaa anu cajaladii baan qaaday gaari cadaayo Land Cruiser Cabdiraxmaan aw Cali lahaab aan qaatay Hargeysaan tagay koodii iyo barkii labadii rubc oo laan galay inankii warka sheegay labada warka la sheegi jiro diyaar garoobay aanu galo dabeedna go'aankii baan u dhiibay sibuu dadka ugu sheegay go'aankii idaacada uga sheegay dabeedna cadceedu ka yar qowdaan oo 4tii galabnimo ayaan anu dib soo noqday dabeedna waxaan ku soo noqday habeennimadii magaalada Burco intaasi waa intii go'aankii ka soo baxay Burco ee ku dhawaaqida muu ahayn waxay SNM la timid meesha manuu ahayn wax dokumentiga asaasiga ah ee SNM ku qornaa bal sida kalaaba ku qornayd in SNM ka soo horjeedo in dalka loo kala jarjaro gobollo taasina wax nagu kalifay baa jiro dagaalkii noogu weynaa Maxamed Siyaad Barre nagu qaaday wuxuu ahaa waa gooni u goosato dabeedna meesha aanu joognay waxa ahayd Ethiopia oo intaasoo qowmiyadoodii intaasoo af iyo intaasoo diimoodii intaasoo gobola oo soo qaadista ereyga goosashadu uu xaraan iyo dil iyo toosho yahay taadaraadee horta ma aanan soo qaadi karin goosasho talabaad ologa aanu ka tirsanayn beesha caalamku markaa dagaalkii qabooba socdayo bariga galbeed baa la kala ah marka duruufta aanu ku jirnay halkan ku jirnay anaga waxay nagelinaysa bahda bariga ayaanu ka tirsanay
yaani toos noo caawin midowgii Soobiyetay iyo Kuuba iyo laakiin dowladda Itoobiya oo la bahayd ayaan caawinaysay taasina mid kale ahayd marka waxaan ku qasbanay anagu inaan mar walba xooga saarno oo aanu cadayno madfaca ugu weyn ee Afweyn ugu ridayeen mar walba ahaa way goosanayaan annaguna mar walba aanu proof garayno inaan goosanayn laakiin tii dareenka dadku ka burca ka dhacay ayuu ahayo markii la soo galayba Hargeysa dhexdeeda dood ka bilaabantay waxaan xasuustaa 89kii anagoo madaweyn meel la yiraahdo joogno shir golaha guurtida 89kii September August meelahaas anagoo shirkii guurtida fadhiin laakiin tii taambu dhowr iyo 10 oo Axmed Siilaan nala joogo inuu Axmed soo qaaday arinta goosashada dabeedna shir formal oo golo dhexe kuma aanan jirin oo de kooromna ma buuxin shirna uma yeednayn laakiin tii wada tashigii arintii waxaanu dhino maanta halkan taagan Hargeysa dusheeda inaynu ku dhawaaqno inaynu goosanayno waxay nagu noqonaysaa dib u dhac iyo Soomaaliya oo dhan ay naga hor timaada iyo dagaal dambe aynaan tamaru haynin dabeedna sidaas lagu joojiyay marka intii aanu xagga joognay marna shirna kuma aanan soo qaadin dokumentina kuma aanan qoran sidaa kala noo qornay sidaa daraadeed la soo noqoshada madax banaanida Somaliland waxay ku timid consensus ka yimid dadweynaha gaar ahaan shirka odayaasha beelaha shirka lagu magacaabay walaalaynta beelaha waqooyi qodobkii markii la keenay 6 qodob meesha la yiraahdo Somaliland baan ku dhawaaqaynaa go'aamadii kalfadhiga waxa lagu daray go'aamo gaar ah oo khuseeya dhismaha Jamhuuriyadda Somaliland dabeedna naskii qodobkii uu qoray kalfadhigu wuxuu ahaa in gobolada waqooyi dib loogu celiyo xaaladii sharciyeed ee ay ku sugnaayeen 26 Juun 1960 qodobka labaad wuxuu ahaa in dhismaha la adkeeyo dawladda walaalaheena Soomaaliyana lagala xaajoodo sidii loogu wada noolaan lahaa nabad iyo walaalnimo siyaasay ku dhacday sheekadii la soo noqoshada madax banaanida Somaliland dadka qaarkii baa waxay yiraahdaan iskuulo waxa jira halkan la yiraahdo 17 May Xasan Cawaale Caynaan in la yiraahdo ahaan jir waa run 17 May 1991 ayaa go'aanka la gaaray dabaaldega iyo xafladda iyo muddada bilowgeedu waa 18 May 1991 markii calanka la taagay waxa la taagay waxa la taagay 18 May sawirradii maalinta la qaaday hoosta kaga qoran tahay Cabdiraxmaan Axmed Cali oo gudoomiyaha si rasmi ah iyo dadkii soo banaan baxay ciidankii oo salaamaya iyo calankii oo la taagay go'aan baa ku jira go'aamadii kalfadhigii labaad ee caadiga ahaa golaha dhexe oo oranaya muddada kala guurka ee labada sanadooda ee ay xilka haynayso SNM ee gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenku ay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ahaanayaan waxay ka bilaabmaysaa 18 May taasina waxay si adkeynaysaa in maalinta rasmiga ah 18 May ay tahay waxa kale si cadeynayana waxa weeye 29 sanadood in maalin walba la xusayay 18 May marka siyaasaan la isugu qaldi kareen 17 May iyo 18 May labada maalmood bay kala ahaayeen maalinta kalfadhigu dhacay ee uu socday ee arinta la gorfeeyay ahayd maalinta loo dabaaldegay ee loo go'aamiyay ee 19 sanadood baan ku hadaaqayno way markaan meesha joognay jantar horta meesha ma ahayn ergooyinka division baa jiray inkastoo aan tiradii haynin tiro seelac ka timid iyo tiro awdal ka timid iyo tiro sool ka timid iyo tiro laasqore ka timid iyo tiro kale ayaa jiray oo liis baa dee lagu soo galay meesha ma ahayn wax loo yeedhiyo loo oranay saalaxo kaale adiguna waxa tahay ma ahayn sidii waa lagu soo galay qaabkan 18 ay u saxeexeen imika ee noqonaya laba reer laasqore iyo saddex reer soola iyo laba reer seelic iyo laba reer awdala iyo inta kale jiidan dhaxa waa bariya barsa diinta kale la soo raayo beesha dhexe loo eego waa bariya bad ma garatay marka
hadba deganaanshahagu siduu yahay caafimaadkaagu siduu yahay iyo waayahaagu siduu yahay ayaad ku go-aan qaadanaysa oo dee mar loo fekero oo dimuqraadiyaddii iyo caqliyaddii iyo masalaaddii iyo deganaanshiyi waxay jiraan dabeedna dadku intay gaargaar u shiraan la yidhaahdo waa la shirayaa ee soo dirta ergo waayahaasi muu jirin waayo waxaa jiray nidaam kalitalis halkan ka talinayey dabeedna jabhad hubaysan soo gashay dadku kala shakisanaa dabeedna loo qabay faqashtii hadday meesha ka baxdayn intii kalena ay isku maranayso isku dhacayso kuwan ka yimid hawda ee sanamtaa soo galay meesha nabad bay u baahnaayeen iyo deganaansho iyo inaanay dagaal dambe iyo diib dambe arag 10 sanadood ay ka nastaan bay u baahnaayeen dadkan kalena waxay u baahnaayeen in iyaguna nabadeeda helaano aanay kuwaasi cadha ay nidaamkii u qabeen aanay dadka kula dhicin dabadeedna laba isu baahan unbaa isashay oo tafaasiil ismay weydiine ina fadhiisiya bay yidhaahdeen cid ka baqanaysay iyo cid sas ka qabtayna may jirin marka dee marka la degan yahay imika la leeyahay xisbiyadii dimuqraadiyaddii baynu tixgelinaynaa dabeedna gobolkaa quraca soo dirto intaas oo gobolkaa maraaguna intaas soo dirto xaaladaasi may taagnayn xaaladaan biyo jirin oo aan nolol jirin ba ahayd waxa la yaala wax jiray ma jiraan dhulkuna wada miinu ahaa dabeedna sideebaa gobolku nabad idinku dhacaa berrina waagu idinku soo beriyaa ayuunbay xaaladdu taagnayd waxaanay dadku wada faraxsanaayeen inaanay xabad dambe ka dhicin halkan snmtuna dib u heshiisiinteeda halkan kamay bilaabin dee markay soo gashay may bilaabin snm iyadoo halgan ku jirta ayay dib u heshiisiinta bilowdeen ama dhexdeeda dee garaad cabdilqani 15 Sebtembar 1990 balgoodla noogu yimid marti noogu ahaa waanu dokumenti iyo dee kala saxeexnay warmartiyeed qoladan galbeedka 29 January dee xiriir baanu leenahayno waraaqaan u qornay gobyari baan joogno Jaan Rabiili Cabdiraxmaan Cali dee foodo hore ayay taagnaayeen marka waantu halkaas ay ka soo bilaabmaysaa marka qofka oranaya dimuqraadiyad iyo maslaad iyo lama soo diranayo waa nabadeed oo degan kuma aanan jirin waa barwaaqaana kuma aanan jirin waa waxa laga fikirina kuma aanan jirin waxaan ku jirnay dad qaawan oo isu soo galay oo aan waxba haysan oo cid maqani aanay jirin oo u baahnaa inay salka dhigaan waanu dhignay waxa weeye marka laga hadlayo cafiska iyo dib u heshiisiinta iyo saamaxaadda iyo wax aynkaas marka laga hadlayo asana mootan ku sheegayo halgankii hubaysnaa markii ku jirtay Ibrahim Weegna buugiisa uu qoraya oo wuxuu leeyahay haddii ay jiraan waxna kala duwaya Somaliland iyo kala duwaya Soomaaliya waxa weeye dib u heshiisiintii iyo nabadeyntii aanu ku soo baranay xanaftii iyo xanuunkii halgankii hubaysnaa maaha wax gudaha aanu ku baranay oo waxaanu ku soo baranay dibadda markaanu halkan soo galay ereyga cafis markaad adeegsato oo kale tiraahdo waxbaa la cafiyo kale waxoogaa way dhibsadaan beelaha qaarkood horta waxa fiican inaynu caddayniya isleynayay waxa isleynayay nidaam dictatoria militaria qoys oo ka talinayay jamhuuriyaddii dimuqraadiga ahayd ee Soomaaliyeed oo uu madax u ahaa Maxamed Siyaad Barre ilaahay u naxariisto waxa la dagaalamayay markii uu waxba qaadan waayay waxba maqli waayay gaariya wuxuu oranayaa dhagaha daboolaa intaan dakharku weynaan maantana dilaac aan lahayn meel dawaar maro bardaloolka idinkaa ka dhigay diin la aamino qoriga dadka waa lagu qasbay markii la qori baan kugu xukumayaa degi maayo dadku waxay leeyihiin kaakiisu maanu qaadanayna isleynayay nidaamka Maxamed Siyaad Barre iyo dadweyne xanuun iyo xumaan iyo xasuuq ka tirsaday nidaamkaas oo ay horseed u ahayd jabhad la yiraahdo SNM Maxamed Siyaad Barre reer maskax reer iyo nidaam reer ku taliyo laakiin tii system dawladeed buu ahaa waxa ka tirsanaa beelaha Somaliland oo dhan ayaa ka tirsanaa dabeedna anagu nidaamkaas aan la dagaalamay cid aliyaale ciddii caawinaysay iyo isaguna weynala dagaalamayeen
kuwii ugu darnaa ee nala dagaalamayna kuwii annaga naga dhashay ayay ahaayeen yaanu Burco iyo Hargeysa ugu geli weyne oo dee way nooga aqoon badnaayeen dadka kale markaa horta dadka isleenaya dadkaasoo ahaa markii aanu soo galay shirar dib u heshiisiineed iyo nabadayneed ayaa ka bilaabmay dalka gaar ahaan kow waxay ka soo bilaabmeen Boorame iyo dadkii halkaa isku leenayay dabeedna nootan ku sheegayo SNM way daalanaydo daalka iyo diifta iyo garashada ay garanayaan dagaalku wuxuu yahay iyo macnaha uu leeyahay daraadeed SNM dagaal dambe oo sii socdo may dooneen nabad iyo nolol iyo dib u dhis iyo dib u heshiisiin qof dambe inaanu ku dhimanin colaada axmaqa dabeedna waxa lala fadhiistay dadkii halkan loogu soo galay inta aanan February tagin baa Berbera iyo Burco iyo shirarka dib u heshiisiinta halka ka dhacay galbeedku Hargeysa iyo galbeedkeedaas aad bay u badnaayeen dabeedna kuwii baa sii socday way sii socdeen meel walba way gaadheen su-aashu waxay tahay dib u heshiisiin 100% miyay dhacday oo dee markii dambe 94kii beeshan dhexe SNM tahayd qudheedii baa deystishay dabeedna kala qaxday dabeedna isku soo noqotay dib u heshiisiin 100% miyay dhacday may dhicine waxaa jira unfinished business ayaa jira waxaa jira waxyaabo oo waxyaabahan marmar xiisadaha yaryar inta yar xoqmaan soo kicinaya waxa weeye wixii baan 100% sida lagu gaaraan 100% way adag tahay laakiin tii waa la dhaweyn karaa marka qaybo badan oo dib u heshiisiinta ka mid ah waa unfinished issue مثلا hub dhigista oo kale disarmament sidoo uga dhacay galbeedka uga mudhicin bariga kala deganaanshaha ay kala degan yihiin waxa u sababa halkan hub lagama tagin halagay tii qoriib pistoolad laakiin tii hub waaweyn halkan lagama tagin Burco waa laga qaaday Berbera waa laga qaaday halkan waa laga qaaday laakiin tii gobolaan laga qaadin ayaa jira qofka qorigiisii lagama qaadin oo daan weynku qori baa igu qornaa Africa State Gas and Sodon haysta gurigu yaalada xukuma falo waa part of the artifacts ka guriga ayuu ka mid yahay marka sidaasay dib u heshiisiintu u dhacday mid 100% oo la yiraahdo way dhameystirantay ma jirto si aan anigu qabo ama halkan dhexdeeda ha noqoto ama beeraha darafyada ha noqoto ama meelaha kale ha noqoto wax amdan iyo ogaan looga tagayna ma jiraan beelaha badan ee dhulka taala iyo siday dadku ugu maqan yihiin hawlaha nolosha saameeya ama horumarka ama dib u dhiska ayuun baa keentay wax nacaybaho dadku ay isu qabaana ma jirto cid walibana way garanaysaa wixii la soo maray iyo ilaa imika waxa la soo xaqiijiyay waa sababta uu dalkani u degan yahay ee ay dadkani u degan yihiin horta cid allayaal cidii doonaysa wax tabanaysaba way u furan tahay dhaqanka halkan yaala ama ooli jiray ama aan ku soo caalmaalay sidaas oo ah ma filaydo in ciidinta soo baxdo tooj ku dooni doonto halka media heshiisiintii wax ka horeeyaan waxaan ka deena oran doonto Soomaalidu waxay tiraahdaan nin tuurley sidoo saxanay isaga yaqaana waxay tiraahdaa toosnin la u galgasho tolna wiirkiya marka horto haday in uun cidi wax tabanayso xaq bay u leedahay dawlad iyo dadweyne iyo baal iyo meesha ka tabanaysa horta inay soo dhigto in lagu gargaaro inay dadkaasi waxa ka wada hadlaan ama dawladda kala hadlaan way banaantahay arinta distoorku inuu qabiyo yahay cid walk oo Soomaaliland buu dhibaysa inuu u baahan yahay in la improve gareeyo cid kasto oo Soomaaliland way u baahan tahay su'aasha isweydiinta waxay tahay hadba salaadii joogta ayaa la tukaday distoorku wuxuu u baahan yahay waxa ugu weyn ee muranka ugu weynna ka dhici karo heshiiska ugu weynna ka dhici karo marka maadaama ay muranna yar oo badan jiraan imika oo dildilaacu uu Soomaaliland ku badan yahay waxaan islaahay mala waxa loo baahan yahay in aan distoorka lagu horeeyne waxoogaa dildilaaca jira inta la soo irshushubiyo la soo irtalo meel la soo gaarsiiyo dabeedna isaga naftiisaba la soo dhigo
waxaan isleeyahay cidda dastuurka gaar wax uga tabanaysaa iyo cidda meel kale wax ka tabanaysa iyo cidda dib u heshiisiin wax ka tabanaysa aan midba gaarkiisa u hadlinay dadka in la isu keeno oo isu yimaadaan oo yidhaahdaan war waa maxay caqabada caraqaladaha ugu mudanayna horyaalla what are the main challenges dabeedna ay taxaanuna waa 10 dabeedna sidaynu kala horreysiinaa u dhacmaynaa wada dhacmaysay u kala sarreeyeen baa loo kala guray kow waa taas dabeedna intuu mid qayladhaan kula jir lahaa qodob isagoo dadkii wata in horta issuega meel la saaro dabeedna ka ku xiga meel la saaro dawladana la wadaago dawladuna meel ay tagi kartaa ma jirto haddaan taageerada iyo talada dadka haysan ma dawladeenu ka filaamsa cid kale aniga aragtidayda siday tahay dawladda laga sugi maayo way sameyn lahayd awoodii tamartiina waa haysa anigu waxaan isleeyahay wixii dadka indha u yihi ha isdoondoontaan imikaba waa kuwa qaarleyn dastuurka la furo qaarleyn ma tan kale la sameeyo qaarleyn ma arinta ceelafeen ka horeyna wax imikaba dhawaaqi u jira hal la isu yimaado hal la keeno marka la isu yimaado hal la taxaba hal la kala mudnaan hal la kala siiyo sidaan Soomaalidu tiraawada dhacmay kala sarreeyeen baa loo kala guraa hal la xabad qaado dabeedna hal la taas in imika isugu tagayna marka waxba ka dhown maay cali khaliiftiis oo kale cali khaliif waxba ay hiibanin dawladii wax la saxaxatay cali khaliif dadka hiila ka doono oo mid kale issue kala wata oo ka qaylinaya ha doonto mid kale issue kala wata issue-yadaas ay isu tagaan warkaabeenu ku horeyna dabeedna iyagoo is wata xalkii ha doonaan dawladdan ha ka doonaan taageeray hiil ha ku sanduleeyaan karayaan miyay miir beelas qoben marana dilaa ma quusteen miyay miir beelas qoben marana dilaa ma quusteen inana muxibiyo kalgacal milan maashee farxadii magaabineen maashee farxadii magaabineen